xogtu waad haysaa balse maxay ka dhigan tahay. xogta kaligeed wax badan ma sheegto ilaa la falanqeeyo, la dhexgalo, la fahmo xiriirada iyo sababaha hoos taagan. tani waa shaqada cilmi baarista falanqaynta ama analytical research. waa nooc cilmiyeed oo aan kaliya xog ururin balse ka dhex raadiya faham qoto dheer, isbeddello qarsoon iyo xiriiro muhiim ah. cilmi baaristu falanqayntu waa mid lagu salaynayo xog hore si loo fahmo maxaa ka dambeeyo dhacdo ama xaalad. waxaa la adeegsanayaa falanqayn tiro ahaan ah ama tayo ahaan ah. tilmaamaha ugu muhiimsan ee cilmi baaristani waxaa la falanqeeyaa xog hore oo ah qualitative ama quantitative. waxaa la raadiyaa xiriir, isbeddel ama sababaha hoose. waxa ay u baahan tahay xirfad sare iyo aragti cilmiyeed. tani ma ahan baaritaan kaliya sheegayo waa sidee xaaladda, balse waxay ka hadlaysaa maxaa keenay, sidee bay isugu xiran yihiin iyo maxay xogtani ka turjumaysaa. urur cilmiyeed ayaa muddo 10 sano ah xog ku ururinaya isbeddelka qiimaha shidaalka iyo awoodda wax iibsiga ee dadka Soomaaliyeed. markii xogtaasi la falanqeeyay waxaa la ogaaday mar kasta oo qiimaha shidaalku kor u kaco 15% sicirka raashinka iyo adeegyada kale uu kordho ilaa 20%, taasoo sababta hoos u dhac 30% ah oo ku yimaado wax iibsiga dadweynaha. xogtaasi waxay noqotay saldhig muhiim u ah wasaaradda ganacsiga iyo qorsheynta si ay ula socoto saameynta qiimo kororka suuqyada caalamiga ah. cilmi baarista falanqaynta waxay siisaa baarayaasha fahan qoto dheer oo ka baxsan xogta lafteeda, xiriirka ka dhexeeya dhacdooyinka iyo tirokoobyada. ugu dambays waxay siisaa fursad lagu saadaaliyo dhacdooyinka mustaqbalka. cilmi baaristani waxay si gaar ah loogu adeegsadaa cilmiga dhaqaalaha, bulshada, deegaanka iyo daraasadaha suuqyada. marka xogta aad haysa aad u baahan tahay in laga dhex arko wax qarsoon, falanqaynta cilmiyeed ayaa ah furaha. waa aalad muhiim ah oo kaa caawinayso in aad gaarto xog micno leh, taasoo sal u noqon karta go'aano istiraatiiji ah. cilmi baarista falanqayntu ma ahan xog ururin, waa xog fahan iyo fikir.